salaamu ullaahi calaykum daawadayaal halkaad nagala socotaan waa wargal media wararkaan idiin hayna waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland Maxamed Cabduladiif Yuusuf oo iscasilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo si adag uga hadlay odayaashii ka hadlay midnimada Soomaaliya Djibouti oo shaacisay in uu qofkii ugu horeeyay u geeriyooday cudurka COVID-19 gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada Jowhar oo ku dhaawacmay bam gacmeed lagu tuuray hotel uu ka deganaa magaalada Jowhar allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo maanta lagu aasayo magaalada London deegaanka Garjiir ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaa maanta la geeyay ciidamo boolis ah oo dheeraad ah kuwaas oo la soconaya dhaqdhaqaaqa xuduudka Itoobiya ay kala leedahay degmadaas deegaanka Baarsanguuni oo qiyaastii kaga beegan 40 kiiloomitir degmada Kismaayo ayaa maanta dagaal ku dhex maray ciidamada dawladda iyo ciidamada ururka Al-Shabaab ciidamada booliska oo xiray qaar ka mid ah masaajidda magaalada Muqdisho fadlan daawada muuqaalka subscribe saar gambaleelkana furo like-tana ha ka hilmaamin si ay ku soo gaaraan wararkeena adigana aad u noqoto daawadaha ugu horeeya uu soo gaaro wararka aan halkaan ku soo baahino haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan Maxamed Cabduladiif Yuusuf oo ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland ayaa warqad iscasilaada waxa uu gudbiyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland laakiin lama sheegin sababta uu iscasilaadaas uu isu casilay iyo sababta ka dambeysayba ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa maanta xiray qaar ka mid ah masaajidda magaalada Muqdisho xilli dadka intiisa badan ay isu diyaarinayeen tukashada salaada Jimcaha maamulada masaajidda ayaa lagu amray in ay xiraan halka dadka salaada isku soo diyaariyay lagu wargelinayay inay iskaga tagaan masaajidda sababtuna ay la xiriirto caabuqa COVID-19 allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo dhawaan cudurka halista ah ee COVID-19 ugu geeriyooday magaalada London ayaa maanta oo Jimco ah waxaa lagu aasayaa magaalada London deegaanka Garjiir ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaa maanta la geeyay ciidamo boolis ah oo la sheegay in ay la soconayaan dhaqdhaqaaqa degmadaas ay la wadaagto Itoobiya ciidamada cusub waxa ay la howl bilaabeen taliyaha cusub ee degmadaas loo magacaabay waxaana isla markaa maanta uu la wareegay xilka kadib markii lagu bedelay taliyihii hore gaashaanle Gallad Maxamuud Qayliye oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaa faahfaahin laga helayaa qarax uu ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee Jowhar degmada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa xalay fiidkii ka dhacay qarax uu ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maaliyadda maamulka degmada Jowhar Ismaaciil Warsame Faarax qaraxa waxa uu ahaa bam gacmeed lagu tuuray mid ka mid ah hoteelada magaalada Jowhar waxaana dhaawaca Ismaaciil soo gaaray uu yahay mid fudud isla xalaybana la geeyay isbitaal wali waxaan ku guda jirnaa warkii wargal media haatana waxaan daawanaynaa oo nagu soo maqan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo si adag uga hadlay odayaashii ka shaqeynayay maalmahan midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland dhageysi haboon iyo daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay waa mahad leh
ilaaha sugan kale inagoo nabad qabna ilaaha nimcooyinka badanna siiyey nabadda caafimaadka barwaaqada iyo roobka nabadgeliyada iyo nimcooyinka badan kale ilaahayna siiyey baa mahad leh ilaahay waxaanu ka baryaynaa isaga awood leh inuu aafooyinka jira adduunka ina gara mariyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inagu itaal ma hayne isaga awood leh gacmahaynu u taagaynaa inuu ilaahay aafooyinka ka dhawaa adduunka oo dhan ka yaabiyey nahareer mariyo ilaahay itaal ma leh aanu ka baryaynaa maanta halkan qaranka madaxdiisa waxay isugu timid qodobka ugu weyn waxa weeye in laga hadlo sidii aynu soo kaashan lahayn inagoo mid ah uga badbaadi lahayn dadkeenna uga ilaalin lahayn intii suurtagala inaanu ka badbaadino xanuunkan adduunka ku faafay ee coronavirus xanuunkaas oo cid walba ka yaabiyey waxa lagu heshiiyo adduunka o dhan ba isku afkarsay in lagaga bixi karo keliya talo dawo male wax laga hortago male tallaal male caalamka o dhan wuxuu isku raacay inuu iswaaniyo waanada u kala qaato wixii u dano isfahamsiiyo wixii kalena waynu raacin ee danteena muhiimaddu waa arrinta xanuunka coronavirus oo baryahanba aada iyo aad looga dayrinayay waxaynu u samaynay guddi ka hortageed oo heer qaran ah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo is-abaabulay hadday yihiin ururada samafalka hadday yihiin ururada dhallinyarada culimada dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka somalilan dhammaantood siay uga hortageen ugu dadaaleen in laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay in badanna laga sugaayo inay hawshaas sii kordhiyaan iyo dadaalkaa laga hortagaayo ganacsatada oo qayb weyn ka qaatay markii loo yeedhay waxa aan joognaa gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeenna fadlan ha ka tegin inaad channelka subscribe saarto fideogana like aad saarto aadna sii sheer garayso si saaxiibadaada kale uu u gaaro waad mahadsantihiin halkaas ayay noogu egyahay warkii aan kala socoteen wargal media.